qur'aankii marka isku qur'aan ma nihin oo qur'aan siyaada abay wataan. سيق الذين اتقوا ربهم إلى تلك الجنة العالية ذات القطوف الدانية. أحاديثتي اسكو أحاديث من هنا أحاديث كلية كتب كلية وطان. إنك أنا أحاديثتي معناها بخاري ومسلم بقى إنه أحاديث لبدي مصدر إنه لا شبه وانكو كلا تجنمر. لبدي مصدر إنه لا شبه وانكو كلا تجنيو اسكو مال بأمر نقولنا. اسكو مال بأمر لابنه قرآن سيادة أنا ووطان وهذا وانسكسو جابيه موي آياتها قرآن كوحي كسيادين هدارت والله بس كتبتك وقرأت. فيا أيتها النفس المطمئنة للولاية وبالولاية ارجعي إلى وليك راضية مرضية وادخلي في حب علي وادخلي جنتي بل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. كتبتooda ku qoran tahay aayad aynu naqaanay oo waxaad arkaysaa xaraf bay ku darayaan xaraf bay ku siyaadinayaan qaar waxaad arkaysaa aayadan oo meelay ku taala ayna jirin oo ay ku leeyihiin quraanka ay kamid la yiraahdo aqeedatu tahriif alquran quraankan ilaahi subhanahu wa ta'ala uu soo deji malakul jibril uu soo dhiibay nabi maxamed uu soo gaarsiiyay sallallahu alayhi wasallam nabiguna saxaabadiisii ay ka soo guuriyeen oo ka qaadeen saxaabaduna taabiciinta uu soo dhiibeen sida inugu soo gaaray alla ilaaliyay hal xaraf oo ku siyaadsan oo lagu daray ma jiro hal xaraf oo laga dhimayna ma jiro maxay yeelay allah ba subhanahu wa ta'ala xifdintiisa ka faala qaad inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun annaga soo dejinay rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka annagaana ilaalinayna intaas taqriiban 1400 iyo ziyaada sano baa laga joogaa dhimashadii nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi haddana ma dalika quraanka waa lagu guuleysan kari waay si kasta inta la isugu day hal xarafa in lagu daro ama hal xarafa in laga dhimo laana waxa weeye quraanku wax kitaab ku qoran oo kaliya ma ah hadduu kitaab kaliya ku qornaan lahaa way suuroobi lahayd kutubta inta la iska qaado in wax laga badbadalo kadibna isagoo bedelan in dib loo soo faafiyo dadka loogu keeno laakiin inta kaliya ma aha quraanku laabto ku jira ilmaha yarkay 10 jirka ama 8 jirka baa xifdisan hadii kutubta oo dhan lala wada wareego oo iyagoo bedelan la inagu soo celiyo wixii lagu siyaadiyay dhibic hadii lagu siyaadiyo waa la garan wax marka la bedeli karo ama wax lagu sameyn karo ama wax lagu siyaadin karo ma ilaahi baa sida ku xifdiyay subhanahu wa ta'ala oo ku ilaaliyay laakiin shiicadu waxay qabaan khaasatan raafidadu inuu san quraanku sidoo ku soo dagay ahayn quraanka in wax laga bedelay quraanka in wax lagu in macnaha wax weeye qaybi ka maqan tahay ay qabaan arrintaana sababta ku bixisay waxay ahayd waxay ictiqaadiyeen in nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi intuu san geeriyoonin ay jiraan aayado quraan ah oo oranaya rasuulku markuu dhinto xilka cali ba uga dambeeyay aayada quraan oo sida dhahaya ayaa jiraba iska dhaadhiciyeen quraankii qorna ee Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu uu jamciyo ururiyay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu isaguna macnaha wax way uu uga dambeeyay saxaabaduna ay isku raaceen markii la fiiriyayna hal aayado waxa laga waayay oranaysa nabi maxamed haduu dhinto salawaatu rabbi wa salaam alayhi xilka cali ba uga dambeyn doona waa laga waayay wixii hadii laga waayay aayad sheegaysa cali ba xilka uga dambeyn doona mas'uuliyadda muslimiinta uga dambeyn doona meeshaas waxa ka dhalatay inay yiraahdaan maya way ku taalay quraankii nabigu ka tagay laakiin saxaabada isku raacay in aayadaha noocaas meesha laga saaro si xilka ay cali uga wareejiyaan oo Abu Bakr ay ugu dhiibaan macnaheedu wax weeyaan marka hore shubhadu waxay kaga dhalatay i'tiqaad baadil oo i'tiqaadiyeen i'tiqaadkii markay daliil u waayeen wuxuu ku bixiyay inay yiraahdaan quraankani maba ahaba kii nabigu keenay sallallahu alayhi wasallam kii nabi maxamed la yimid ee uu ka tagay waxa ku qornaa aayado oranaya cali ayaa wali ilaahaya علي أيا حلك وقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ومد علي أمرها هي ما دام كوي لجواه عاوي بالواقع القرآن كي يكسر صارا وحين هذا القرآن كان كيم إيه وحبا كما قالوا آياته نوعها صحابة اسكر عيني كجويان
يعني waxay ka mid tahay aqaa'ida shiicada ay ka mid tahay waana mas'ala khatarteeda leh oo aqeeda halisa way kitaabkii ugu horeeyay oo aqeedada noocaas lagu qoray baatilka waxa la yiraahdaa waa kitaab u lahan jirin la yiraahdo Salim ibn Qays baa la dhigi jiray Salim ibn Qays waxa uu dhintay taariikhdu markay ahayd 9kii hijriga macna qarnigii koobaad dhamaadkiisii buu dhintay kitaabkaas waa kutubta rawaafida kutubtii ugu horeysay buu kamid yahay kitaabkaasi wuxuu qoray quraanku inuu san sidii nabigu uga tagay ahayn salawaatu rabbi wasalaam alayhi kitaabka markuu sida ku qoray atbaacdi shiicada ee raacsana maynan arinta iyada adiidin mana aynan inkirin waa soo dhaweeyeen kitaabkii waa la soo dhaweystay mabdii waa la amaanay kutub dambaa qortay rag dambaa macna wax way aad uga hadlay markii la gaaray qarnigii saddexaad ama qarnigii afraad ee hijriga ayaa si cad waxa u tibaaxay oo si cad u cadeeyay in shiicadu ay qabto quraankani inuu dhiman yahay oo dhameystirnayn waxa sheegay ninka la yiraahdo al-Qummi oo kamid ragooda culimadooda waaweyn ay qadariyaan oo Kulaynigi hadda aan sheegaynay sheekhiisa ayaa qoray kadalika ragii isla waqtiga ay ahaayeen ayaa iyaguna kutubtooda ku qoray oo qarnigii saddexaad iyo qarnigii afraad bay fikradani aad u soo baxday maxay la qurunta iyada ah waa qarnigii saddexaad aakhirkiisii iyo qarnigii afraad iyo waa qurunta ay xoogeysatay fikirka shiicadu oo caalamul islaami meelo kamida ay ka taliyeen dhul caalamul islaami kamida baa dawladda uga istaageen oo maghribul arabi uu kamid yahay waqtiga marka ay xoogeysteen oo marka ayna ninna ka baqaynin bay marka afkaartani soo saareen oo kutub badan ku qoreen oo ay caan baxday waxa laga heli karayaa riwaayaadka ku tusaya inay shiicadu qabto quraanku inuu muharraf yahay يعني أصول الكافي أو كليني أو كتاب كذا عن شيخنا إنه كم إذا كتبته أي اعتمادان وحكم إذا عياش النك اللي هذا تفسير كيسة استجونا وكقري أو وحش شيء القرآن كإنه سن لما يسترنين وحكت لميهن وحصل أرنت لفت هذا الشيء استجنا فرات ابن إبراهيم الكوفي اللي هذا تفسير بوله استجنا تفسير فرات اللي هذا استجونا سيدو كله وسوق جوريي روايات كشيعadu ee oranaya quraanku waa kala dhimay waxa isla qoray isagoo midna isku casri ahaayeen oo la yiraahdo Muhammad ibn Ibrahim an-Nu'mani kitaab la yiraahdo al-Ghayba bule asaguna wuu ku qoray mabda'a isaga in shiicadu qabto riwaayad fara badan uu soo guuriyay bal rag kamida shiicada rag kamida oo rag macna wax way rag aad ay u ictimaadaan kamida baa wuxuu soo guuriyay mabda'a quraanku inuu san dhameystirnayn oo wax ka dhiman yihiin shiicada intooda badan baa isku waafaqsan buu raafidada inteeda badan mabda'a way isla ogosay buu soo jeediyay arintu say u socotay waxay gaadhay markii dambe in ay yaani wax weeyaan ay kitaabka qoraan oo si cadba ay ugu sheegaan kitaab ka bahadlayaba quraanka in la bedelay oo wax lagu siyaadiyay oo wax laga gooyay oo sidii Ilaahay u soo dejiyay inuu sanahay kitaab waxa jira hadda mabda laga qoray arinta iyada oo uu leeyahay nin aad iyaguna macnaha ragooda odayaasha kamida oo aad u qadariyaan oo la yiraahdo an-Nur at-Tabrasi an-Nuri at-Tabrasi baa la yiraahdaa kitaab wuxuu qoray oo ku magacaabay fasl al-khitab fi ithbat tahrif kitab rabb al-arbab kitaabka wuxuu ciwaanba uga dhigayba yaani inuu kitaabka Ilaahay soo dejiyay ee dadka hadda ay haystaan inuu bedelan yahay oo sidii Ilaahay u soo dejiyay uu san ahayn baa kitaabka ka hadlayaa kitaabka dhanba taas oo macna wax way ciwaan uga dhigay kadib wuxuu soo guuriyay riwaayaadka usul kaafi kulayni iyo غيرkood ku yaalay hadda aan sheegaynay buu soo guuriyay oo sugaya in ay raafidadu qabto quraankani inuu san ahayn quraankii Nabi Maxamed ku soo dagay salawaatu rabbi wasalaam alayhi ee in wax laga saxaabadu wax ka gooyeen wax ku dareen ayadaha qaarkood isbedel ku sameeyeen sidaas inay raafidadu qabto ayuu kitaabkiisa ku qoray mabda'a marka ah shiicadu inaynan qabin ama raafidadu inaynan qabin quraankani inuu dhameystiran yahay waa mabda' muqarrar qaar kamida ka dooda oo waxay yiraahdaan fikirkaasi waa lagu been abuurtay qaar kamidana sibay u fasiraan oo waxay yiraahdeen ma aha waxa meesha aanu ku sheegnay ma aha inaan qabno quraanku ma dhameystirna laakiin waxyaalaha kale to tafsiir ahaan baan ka wadnaa mooyaane iyo sharx quraanku ma dhameystirna kama wadno
qaar badan oo saa u dooda waa jiraan laakiin mabda'a raafidadu ay qabtee asalka ah kutubtoodana ku qoran inuu quraanku uusan dhameystirnayn ruuxii qaba quraanku inuusan dhameystirnayn oo kitaabka Ilaahay soo dejiyay subhanahu wa ta'ala inay wax ka maqan yihiinna muslimiinta iyo culimada islaamku dhamaantood waxay isku waafaqsan yihiin inuu gaal yahay saas daraadeed baan u tagi doonaa biidnaahi tabaaraka wa ta'ala waxa ay ka qabaan culimada muslimiintu raafidada waxay ka qabaan raafida maxay ka qabaan يعني وحوين إلا نروح مركا لميزامية أما كوحدة لميزامية أما قاليسينتودا أما إسلام با مقال با مركا لحكومة روحا لقوما حكومة يعني مجرد لقوما حكومة عاطفة لقوما حكومة لكن وحا لقو حكومة عقيدة ديس أنا سنصور شاقنيبا وحا لقر هذه كتبتيسة إيوه يعني مبدأ فكرة أهان وقرر ميسانية هيبا لقر هذه شيعة إيه الرافضة مركا كهالينا مركا ما أها مسألة السياسة ما أها مسألتنا مسألة ما أها يعني وحويان تاجر السياسية ما أها لكن مسألتها مسألة عقيدة أوي مسألة عقيدة أوي كوحدا أما يعني وحويان حزبا أما جروب كان أما فرقدا محي رميسان تهاي وحي رميسان تهاي كتبت هذا كقرن بنا ميزان كاللغو صارية مركل لليه هاي وقالوا أما ومسلم مركل لليه لما مبدأ بينه هينا إلهي سبحانه وتعالى إني قبان إنوسا وحيابها رعي قار كم إذا كور هينين مبدأ الله بعدنا وحي قبان قرآنكو إنو بدلين هي مبدأ الصدح هذا قبان وحوي إنك كأهل السنة أهان صحابة دي يتابعين تي يضدك دينتا لقسو قاري وحي الرميسان هي نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه أحاديث تيسير نحلكو كتغي ومتك كقران صحيح البخاري صحيح مسلم سنن كتبت مسانيد كتبت حديث كقران لكن شيعة خاصة رافضة أحاديث تا إنه قران إنه قد دليشنين إن لنا هاي نبي محمد با يري صلوات ربي وسلام عليه نبي محمد با سيدا سميي أحاديث تا كوا أنا هاي با قران ومصدر كلابات نولش المسلمين تلاقى قاتوا أحاديث تأي السنة إسكو سنة إيه أحاديثنا منه أصول الكافي بكتبت أحاديث تودا أصلوا إنك صحيح البخاري بأصل نوع صحيح مسلم بأحاديث تنو أي كتب على النبي محمد كسوغن صلوات ربي وسلام عليه أيجنا كتب كالتيلي